gabdhaha Soomaaliyeed marka xiriir jacayl la sameeyso صح saddex cilad waa leeyihiin saddex cilad صفيان waa leeyihiin صفيان masir been كو oo adil lagu soo jiidanayo been waxba aan ka jirin ساد راد aan lahayn iga afuf amal ah ma fahanti يا بيبي إيسا تور بيبي ارتاح فايدة قرطة ناكتي بيبي اتراه إلهي كل دارتي بيبي حفايدة قرطة بيبي حفايدة قرطة فايدة قرطة أنا فايدة ماذا بيبي ناكتي اتراه بيبي كان سجل أنا بيبي إيسا تور أنت ليري ساحب كي هتكور أنا إيدي مكاس كور وحيد كور إيدي ما هي كله ما هي بيبي إيسا تور الله عدو عداني أنتاجنا هذا توري maya adiga waxaan kugu daa ila yare adiga wada socdo ugu habeenkaas way ila yaro kugu haleynay hadlo afka ku celin sugar adeed kulan wacan oo wanaagsan dhamaan asxaabta sida ogtiin maanta waxaan qabanayay muuqaal Captain Jay fanaankeen weyn aan qabanaynay kadib meesha waxa ka dhashay hadal aan caadi ahayn oo badiyaan social media side u socday waxa meesha kula kulannay waa wada taqaaniin diinle kadib bankeena marka fanaankeen kada hadiidin adiga waagi kaasa ay ugu dambeysay okay asxaabteeda marka labadan waa la kala fikir duwan yahay Captain Jerry waxa way Tigray ma laga maro diinlena waxa way Soomaali ma laga maro inaan niisoo gudbinaan jeclaysanay waxa uu Tigray ku taageeray waxa uu Soomaali ku taageeray waxaan ku hormareynaa Captain Jerry soo badho horta gabar meesha joogto baan wax taageersanaa safiyan wadanka yarta oo dhalto safiyan warka xiriir saamiya macna maya warka xiriir saamiya waxa daadani waxa gabar ay dhashay ay safiyan taageero ku sheegay safiyan tan gooniga oo doodana ah la gabar meesha taay joogto taageersanaa safiyan oo ya taageersanaa way hooyo ay dhashay safiyan gabarna safiyan gabarna ay dhashay yaan dhalin oo yee dhalin sik tokidisi ay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Tigray marka loo safiyan gabdhaha Soomaaliyeed aan waxaan ku qaadan lahaa walaaltinimadooda macaan safiyan asxaabtinimadooda macaan ma ayaga kugu falay marka war ma yahay adarta aan fikirkayga ka hadlo ka hadal aniga ti aan ka qaban ku sheegay safiyan waayo maxaan walaal ugu dhigtaa daan nacaybo adiga gabdhaha Soomaaliyeed waxa ugu shaay wixii ka badan ma mustaqbal marka loo Soomaali Tigray أنا تكلم كهذا رأي هانتي ما حكوا قاعدة مرك بسم الله بارين ماذا كلالين ماذا صفيان أوكي قبل الصومالي باري ما قبل تكريه ما أنت أظن قبل مركا حرير لسميس صفيان for example أبو الدين لو كله ويماد وكاهل أم سنة صح وما هت وإسكراعي معني نيكو يماد الراعي ما وما هتنته أنا وحان ليه صاحب صفيان ليه صفيان فهمت صفيان قبلين سماعي لكن ما قبل داعي الناس بينات شكتي مركا قرصتي قبل تكريه صفيان الباب كان مشاري لا غوركنا ابو الباب على غوركنا نيو سومالي اوكي نو اركي انت ها هي من اسقو حاصل وركيو ka dhamaan فير جوج اسقو حاصل انا la kulmabo hay isagoo xaasle siriirtiis asfirashana halkaana meesha mashari laga horkeenay albaabka okay soo dhaw horta marka hore soo dhaw waan dhaw aad u dhaw dhiig ku kala tartiib dhiig mar hore oo kala gacmaha bay dhiigay ay waxaan ku yiri taqana waxa tiri Soomaali waxaan ka dhigtay walaal baan ka dhigtay waxaad ogtahay in si wax kale kugu qaadanayn macnaheedu ayaga macnaheedu boss buu ku heen in kastoo la heli karo kuwa aad oo kula fikira kula aqli oo macnaheedu dhowr qof aad soo martay wada aragtay ee noocaas oo kala ninka aad dhahday ee gogashiisa xataa loomahaga asaga hagaagsada aan leedahay hadduu asaga gogashiisa hagaagsado waxay kaga qurux badan tahay malaha okay waxaan rabaa waxa ku dhaleeshay Tigrayda waxa kuwan ku qaadatay inaan u sheegto Tigray nolol dhaqan maaha ko oo isku qomiyad man yihiin baad ogtahay Sufyaan mideeda kalena hadda Tigray hadda dhul am xaara way dhul am xarama hadda waxa leedahay macnihi waa gabdhahan arkay oo war aniga waan tagay sabab markaadi am xaari Tigray laba kaliyin laba kaliyin am xaari Tigray dhaqankay wada leeyihiin laba Ethiopia ha amidaysa adi muhiim gabdhaha Ethiopiaanka waxa ku nacday ku Soomaali ku taagay waxa ku nacan ku sheegaya asaga haduu wali ma tagtay aniga saartay
taas waxa iga weydiin maya markaan ku wax sheegayso waa waxa in aragto waa wax ka taqaanid wax ka taqaanid dhigayso aniga dhigayso dadka sheegayso maanta markii hees la isku qabsado abwaandiin lokaal heeska intuu ku xun yahay adiga fiir warka dhamaysa gacantaad ka jaranaysaa dhigayso warka ma tagtay ma tagto ma aniga waa tay guriga geedka weyn oo roobka ku daa maalmo ku daa agtiisaan degnaanay adiga laba muhiim adiga laba laga rabo maya adiga laba laga raba midda ku amaantay gabadha Soomaalida iyo midda Tigrayda iyo noo kala sheeg waan kala sheegaya Tigrayda uu ku amaanayo hadda halka kaga soo horbaxdo adiga shakhsi ahaan araw halka aad taagan tahay tiraahdo anji hadda tiraahdo waa ka daadsanay warka saas waa ay soo hadalka dhamaysta asaga aadin asaga jirtaa marka way simintii ogow marka midaan ku sheegay taas horta waa sida ma fahantay mideeda kalena guuraad dhahday markaad guursato gabadha Tigrayda ah mishaarida waxay kaaga horkeenaysaa tiri maxay albaabka adiga hadii lagaaga horkeenay albaabka aniga markaas albaabka sheegtay inta anaga soo bixin shaqada joogan la soo hay ayadoo kula sad ugu imaatay xitaa kula saacada kugu diyaarnay markii la soo rogay ma arkano oo ayadoo kulan ku diyaarnay ma soo socotaa lagu leeyahay boqolkii laba ya waray dhigayso boqolkii laba adiga maxay ku diiday boqolkii laba soo baxayba in mid ficil Ilaahay kugu aadi adaa qof xuna okay Tigrayda kuwa markay boqolkii laba yihiin Tigrayda meeqa laga heli karaa 20 laga xun intan hal midaan ku sheegaa waa la soo dhaqantay ma hal midaan ku sheegaa dhaqanka waxa ka horeeya horta waxa aragta horta wax laga sheegaa wax ma fiican aragto xaqiiqada wax laga sheegaa dhageyso horta waxayna kamina arkina dacaa afkaaga ay shacdina maya ninkaana arkay ana arkay midaan ku sheegaa ninkan uu arkay waa wada joogay Ethiopia wada joogay maxaa dhacday ninkan uu arkay hadda bis ana maxay ugu diiday marka ninkan waa ogolaataa adiga ma arkin laakiin maxaa dhacday waa arkay waxa inaan ku arkay ku sheegaa okay anji xagee keen ii sheeg ما أنشي كو أنتوا يبغى ذاك يلا من حاجة كذا كو أنت كبرت سبعة الحكي ما تبغى تبيك أنت مانجي وكبرت والله أنا حمر الجوج مركي تبي ما إلا هذا هذه وحن كهرباء وحاسة كل دليل أنكو معناه كلا ودن ولا سجور سدا صح ورد ما يكاد تسوق كلام كلا ودن ولا سجور سدا ما سوماليدا waxaan ku arkay calaamada ku sheegay Soomaalida waxaan ku arkay wiil Soomaaliyeed aw u doonay gabar صح waxa leeyahay hebel waa Safia magayno Safia nin Jamaican ah ku guursanay Ingiriiska صح gabadheen nin ajnabi baa guursay اللي هو صعبنا فهمت اوكي من اجنبي بالعكا كينه ها Soomaalida ma cunto wuxuu doona han noqon lagu faano aniga diintu haysta ma fiirin wuxuu yahay mala awaan taasan kaga jawaaba gabadha ninka ajnabiga waa lagu taageeray Safia okay de aan ku sheegay gabdhaha Tigrayda inay khatar yihiin ku sheegay marka صح social media wiilish saarno dhan fiiri maxay soo dhigteen gabdhaha Tigrayda ha gabdhooda u faanayaan hay taas ugu jawaab aan ku sheegay mid horan kaga jawaab dhigayso aniga Tigrayda ay sheegaysid aniga shakhsi ahaan waan jeclahay laakiin si jecel nooc jecel aniga mustaqbal ma hadiiba jecel oo imaan dhowdahay mustaqbal waxa la wadaagayaa midaan u qalanto oo aan isku diiganahay oo halka u dhartay quruxdan Ilaahay ee Afrika markii la yiraahdo anaga qurux badan Soomaalida markii la yiraahdo siiba gabdhaheena aad bay qurux badan yihiin okay maxaa ugu shahay jecel nooc u qabtaa Soomaalida asalkeeda waa Oromo ka timid horta dhigayso oromada aad sheegaysa maarta oromada maanta ha igu soo daba ordin hadalkana ha iga kala lumin gobolka yaraa hadirta aad ay saaygo lumin mideeda kale aan ku sheego waxa tiri hadalka muxuu noo soo celi ayaa wadaas ninka qalbigu ka jecel yahay gabdhaha Tigrayda aniga ma jaceelka ma waxa sheegi laadaha ilaa hadda gabadha Tigrayda waxaasan ku ninkan waxa lagu dhahay kan tan Tigrayda mashaarida albaabka kaaga horkeenay tan Soomaalidana godashaada hagaagsanay arab waa sheegay dhigso waqti hore waa sheegay kaas oo gadaha noo celiyo hadda la joog saacadis aan taaganahay aan ku geyn karaa 15 guri ma fahanti oo may oraga shaqo ku maqan yihiin naagana jifan qaday oo korno tag away asagu ku soo qaada keenay Soomaaliyana joogta wasatan okay هذا عندي بقول كل لبض في عمد كهشة رك بانكي هنا ملالو دقيقة صرت مايا هذا كان صح سجني هذا كان صح استاه واحد تري أن جبر الصومالي بتري مركي ويل الصومالي أو دونتو وحاله وحجة أن أما قرش أم حلا أم إزجينا لي هذا سما تكور كجرو ها مدي تكور هتري نندي بدأ جوجا قرصنا سما أجنبي قرصنا هذيك تكلم مركزين يسود مقرصين يسود مايا هذيك هذا تاجر فيري هذا كان كلام يستحق هذيك حقوق ده هذيك الشخص عن صومالي متيجي يا
adigoo Soomaali ah hadda maxaa u didsan tahay inaad gabar Tigray ah oo aad nolol wadaagto Soomaa adina noocaado kala gabar waxaan ugu jirto oo sidaadoo kale oo sidaas oo dibadda ka qaraabato waxaan u wadaagaa waa ku sheegay halkaas aan ku dhigay ayada saas oo kale u wadaagay meeshaas oo cadda ma ayadana oo cadda kowde midda kale aan ku sheego wiil Soomaaliga maxaa loo diiday marka ya maxaa loo diiday 0.5 ataaliri هذا ما بقيه دي فير ما بقيه فير ما بقيه هذيك الله هذا ما بقيه جيري هالمر ninka mid laga laayay ninkan wuxuu ku soo dhigay boqolkiiba wuxuu ku dhahay 80 Ethiopian ka fiican boqolkiiba laba sug wuxuu ku dhahay mishaarida albaabka laga horkeeno adiga maxaa cadeynaysa waxaan dheeb ilaa beenad sheegtay boqolkiiba laba ma ahane boqolkiiba 80 anaga xaqeena boqolkiiba 9 anaga xaqeena fiican sababtoo ah waxaan ku weydiinaa runtan ku sheegay waxaan ku weydiinaa Ethiopian iyo Soomaaliya qurux badan Tigray iyo Soomaaliya dawladda Soomaaliya maxay hagaag leedahay wadanka maxay hagaag leedahay ay beenta soo kala maxaa jirde haddaan ku sheegaya ay meeshan hadda aan taaganahay aan fadhino Muqdisho Palm Hotel oo horta Sufyaan ka hor magaca la dhihi jiray Sufyaan magacaas markii la dhihi jiray aanin ka joogo jirnaa Sufyaan jacayl baa halkan ugu bilowday halkaas buu ku dhamaaday jacaylki inta ku bilowday intuu ku dhamaaday heesoo ka sameeyay Sufyaan asaga naftigiisa Sufyaan maxaa dhacay gabdhaha Soomaaliyeed kan ku dhahayo boqolkiiba laba ka fiican Sufyaan saaxiibkii wuxuu la kulmay taariikh qaldan Sufyaan aniga xaqiiqada Sufyaan waxaan sheeg ayb sheego Sufyaan saaxiibkii godka biyo ku soo galo aniga taariikh badan ka qor wadankan Sufyaan 2014 kan imaaday Sufyaan oo Ethiopia kiimid isku maray imaan sameen Sufyaan taariikh badan ka qor Sufyaan gabadha Soomaaliyeed markaan ku dhahay walaaltinimada ku fiican tahay Sufyaan walaaltinimo marka ula xiriirtay walaaltinimo ee asxaab ah ka dhigato Sufyaan maanta qadada ay cunaysa xataa waxay jeceshahay inay ku tahay walaalkii kaale la cun Sufyaan intee joogtaa Sufyaan kaale waa ku fiican yihiin nacas Sufyaan oo aad baan ugu wanaagsan Sufyaan inay ka war qabaan ay ku soo wacaan ku xiriiriyaan kula baashaarana kula qaraaxaystaan ku imaadaan guriga walaaltinimada keenaysa waa fiican tahay Sufyaan walaaltinimada ma dhamaato adiga wixii marti ku fiican yihiin walaaltinimada ma dhamaato Sufyaan laakiin dhanka xiriirka marka loo baxo taariikh badan oo kala kulmay anoo kala soo kulmay waxaan kulmay marxalad badan aan soo marnay Sufyaan gabdhaha Soomaaliyeed marka xiriir jacayl la samayso صح saddex cilad waliin saddex cilad Sufyaan waliin Sufyaan masir been ko oo adil lagu soo jiidanayo been waxba aan ka jirin saad raad aan lahayn iga afuf amale ma fahanti يا بيبي إيسا تور بيبي ارتاح فايدة قرطة ناكتي بيبي اتلا إلهي كل عرتي بيبي حفايدة قرطة بيبي حفايدة قرطة فايدة قرطة أنا فايدة ماتا ناكتي اتلا بيبي كانت أقول أنا بيبي إيسا تور انت ليري ساحب كيات كور أنا إيدي مكاس كور وحيد كور هو إيدي ما هي كل حي ما هي بيبي ساتور الله عدو عداني انتاقنا هذا توري maya adiga waxaan kugu day ila yare adiga wada socdo ugu habeenkaas way ila yaro kugu haleynay aan hadlo afka ku celin sugar adeerta ku darsan asiga ila yare soo socdo aniga iyo gabadhu waa soo socdo gabadhu waa cileynaya ay shirkii ba kala goyn ma hayo ku dhahay cadu cadaana laga soo adeegtay ma hayo ku dhahay ma hayo ay beebida u tuur markii ay cadu cadaana laga soo adeegtay sax waa la soo baxay beebi kala soo watay meeshan aan joogno halkaasaan kiis jirnaani asaga sax ninkaan oo maslax saarnay xabad soo gashay marka oo gaay gacanta ka wadat lacagtiisa lagu labisay ninkaan waa la soo watay Sufyaan duqa heeska waa tartay marka heeska uu heesay oo gaga faxoga aan ii laag amaane saas waa heeska socodsi yalla dareemi amalno faat Sufyaan ka oo gal Sufyaan daradadan SMS كسو هرجيتك مصلحة كرسي فريستنا يا عشي عبيتان يكون ضلبتنا لعقتي سؤال لا مركا نيكا وهيسو مقته انا ترتلو يقدر انت نينكي لوغها جلبها سارتي شيبسي افكلو قلقلنا نيكي ساعدكي هيسك كلا قادي هيسكي اني اللي قرب اكتاكين سعوريها مركا كو قدام بيسمي اركت ماشي جاهز كده عبان تاكلنا هاز دم ما قاعد ماشي وهو يصدر مسج وهو يري
saaxiibkay jeeyo kaas balaanka ka bilaabatay kaas balaanka sheekaas meesha ma waa sax waa sax been ma waa sax arintaas rumiya waa sax waa sax been ma waa sax laba leen joogna xilid saddexaad aan ku sheego xilid saddexaad aan ku dhameena waa mid aan ku dhahay deebi aan waxba ka jirin صح iyo tan soo tuurtaan صح laba iyo waxaa jirta xilid saddexaad si fiican adinku xiriir laa waxa ka maqlay waxa ka war helay macnaha heblaay oo arooskeeda maama herkeeda maanta ka dhacay magaalada muqdisho qarar Facebook xala ku dambeysay isla joogteen xala isla joogteen waqtiga qaadatay idinku qoslayo soo faraxsano هاي ولا معان إنسان حبيبي هاي قال هاي سلاح أكلت كتير حد سواء waxaa arkaysaa ibrahim hebel abwaandin la amal meherkooda ka dhacay Istanbul ama Muqdisho bam ama Sam hotel saar lunch amal arooski lagu casuub waxa lagu dhibo dhegeyso horta dhegeyso ka dhacay Facebook la dhahno zoom soo qabso muftaa eedi waa tii xal darka xaliya buu taxdiido dharka xalay kula joogtay wadata lagu meherino horta ma dhegeyso waxa laga yaabaa xataa lacagta meherkiin aan laga qaado horta ma dhegeyso horta gabadhaas isxaam oo sameynay hay ninka aad aragtay horta warkaan ku sheegay ninka aad waa dhididaha waxa ku sheego gabadha aad sheegaysid ya aniga leeyahay habeenkii waa taa ogeedo adaa igu daray gabadha waxa dhahday gabadhan iyo fanka u baahan tahay teembada barbada igu dhahday xiriir sameyn ku leeyahay ya maya xiriir ana xataa raali kama ahayn samir dacda qortay geli adiga wax madax baa lagu gilaa maya wuxuu yiri kaligeedu waa wada naagtan oo anay samir dacda hal meel ku wada nool soo ma safiican naagtan buu yiri saaxiibo waa kaligeeda ana aqaan heblaaya la yiraahdaa wuxuu yiraahday ma jirtaa horta qoftan way jirtaa hayr ana ma diidi kari gurigan xaasa ay joogto marka carruurna ay joogto markaas gurigiisa ku geenayna marka wuxuu yiri gabadha lama qamo dumaashi waxa la qofta teemba la baraya maxaa dumaashi reer magaal waay haye waay sidaan guri ku geenay teembada kaas balaan ka baxday guriga tagtay gabadhii ilaa ninka aad aragtay lugta saaratay ninkaas qabi jiray wuu furay marka wixii oo ku diiday way cabsanaysa haday ninka ay ka soo tagto anay imaato fashila meesha imaanaya warkaan soo duubno waxa lagu tusay cadeen saddex wax inay gabdhaha Soomaalida ku wanaagsan yihiin walaaltinimada ma qaadatin soo diidantaa dhankasta ku wanaagsan yihiin adiga ma su'aasha ka jawaab maya taas amxaa dhankasta gabdhaha Soomaalida ku wanaagsan yihiin ifaan horta ninka meesha warkaan soo gabagabay maya warkaan soo gabagabay rabaa ninkan wuxuu ku dhaca cadeemo ku tusay sax tiri sax waa tiri maya teedan sax dhahay maya arinta dhacday arinta dhacday sax waa tiri qalada lagu tusay ilaa hadda tikray qalad waa ka tusi weysay muhiim aan soo koobno dadka kumariga u baneen doona inay ka soo jawaabaan labada raay moogtahay cadeema lagu keenay ilaa hadda wax cadeem ma keenin muhiim aan soo koobno ma ku raacdo mise waa diidanta waan diiday gabdhaha Soomaaliyeed aan nolosh ku fiican ayaga ku fiican hajeer sawtura lagu hayna aniga waa ku gura ayaga u shaqeeyaan ugu dambeyn maxaa leedahay maalinta madan hees ka qabtadona naxay iyaan ku rana ugu dambeyn maxaa leedahay عفايد أكو قرن تهاي ما بلا دي كرو بتاتا هذا نيكا دي كرا هذا ولا بدي كرا أنا ولا دي كرا عفايد أكثر ولا دي كرا ديارو هذا وما سنتين أنا أقول سكضو حني لنا هاي باي باي